waxaad ka hormari doontaa nolosha in badan marka aad shaqada bilowdid wakhtiga kuwa kale ay hadlayaan. waa hadal saameyn weyn ku lahaa nolosha laacibka weyn ee reer Jarmalka Toni Kroos sida uu isagu shaaciyay, waxaana taasi ay siisay tayo kubadeed oo cajiib oo ku raaxaysto. da'da 28 jirka wuxuu ku xaqiijiyay dhammaan koobabka waaweyn ee suurtagalka marka laga tago koobka Euro, isagoo caan ku ah naanaysaha jawharada degan, waayo weli ma uusan qaadan wax kaar casaan ah intii uu ku jiray kubadda cagta iyo naanaysta adeege oo loola jeedo baasaskiisa sixirka. muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xaqiiqooyinka xidiga Toni Kroos, halyeeyga Bernabeu ee aamusan, makiinada tayada sare ku shaqaysa. muxuu Fernando Torres u siiyaa 300,000 euro sanadkii? maxay tahay sirta ka dambaysa xirashada kabaha cad ee duqa? tan iyo 2009 fakarkiisa siyaasadeed iyo guud ahaan wax kastoo ku saabsan Toni Kroos. intaa iyo ka badan waxaad kaga bogan doontaan xubinteena silsiladaha xaqiiqooyinka. fadlan intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa inaad subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. sidoo kale sii sheergare oo saaxiibadaada baraha bulshada kula sii wadaag muuqaalka sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+ iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada. Toni Kroos wuxuu ku dhashay 4 bishii January 1990 magaalo xebeedka Gorisfolder, waqooyi bari dalka Jarmalka. waxaa soo barbaariyay qoys isboorti. waalidkii Roland Kroos waxa uu ahaa musaariyacan hore iyo tababare hadda. hooyadii Birgit Kammel waa laacibad hore, haatanna waa macallimad dhanka biologiga. Toni waxaa la dhashay walaal lagu magacaabo Felix Kroos, laacibkii hore ee kooxda Werder Bremen iyo naadiga hadda Union Berlin, kaasoo isagu aan ku guulaysan caannimada uu ku naaloonayo walaalkii. Kroos yaraantiisii ma ahayn mid ku fiican waxbarashada sababa ku aadan jacaylka uu hayay kubadda cagta, waxaana saamaynta kubaddu ay dhaaftay xad kasta, isagoo ka maqnaanshihiisa iskoolka u dhaafay 40 cisho sanad dugsiyeed keliya. laakiin sidaasi oo ay tahay waxa uu ahaa mid degan oo og tallaabada uu qaadayo islamarkaana ay jecel yihiin dadka ku xeeran. laacibku wuxuu ciyaarista kubadda cagta ka bilaabay halka uu ku dhashay, waxay ahayd naadiga FC Gorisfolder. waa naadigii ugu horeeyay ee midabkeeda uu difaaco isagoo jira 7 sano, waxaana tallaabadii ugu horeysay uu ka qaaday dunida kubadda cagta ay ahayd isagoo ka hoos shaqaynaya aabihii, xilliga aabihii oo isagoo tababaro u ahaa carruurtaasi oo wax ku baranayay dugsiga naadigaasi. markii uu halkaasi ku qaatay 5 sano wuxuu u wareegay isagoo waalidkii iyo walaalkii ay la socdaan naadiga Hansarostock sanadkii 2002, markaa oo halkaasi bandhig cajiiba la yimid, taasoo ka yeeshay in indhaha ay ku soo jeediyaan kooxaha waaweyn ilaa iyo markii 2006 u wareegay naadiga daayirada ee Bayern Munchen. halkaasi wuxuu ku qaatay hal xil ciyaareed ka hor intaan loo soo badanin kooxda koowaad. kulankiisii ugu horeeyay uu saftay waxa uu ka hortagay naadiga Energy Cottbus, isagoona 2 gool ka caawiyay goolalihii horyaalka Jarmalka Miroslav Klose. dhammaadkii xil ciyaareedkaasi waxa uu suura gashay in kooxda uu kula guulaysto horyaalka iyo weliba koobka Jarmalka. intaasi kadib markii uu furmay suuqa kaliibsiga, waxaa si amaaha loogu diray naadiga Bayer Leverkusen xil ciyaareedkii 2009-2010. taasi waxaa looga gol lahaa in waqti badan uu ciyaaro si khibradu u soo kasbado. xil ciyaareedkii xigay waxa uu Toni Kroos ku soo laabtay naadiga Bavarianka isagoo bandhig cajiiba la muujiyay. waxa uu tusay dunida inuu lafdhabar u yahay shaxda kooxda. sidoo kale Bavarianka wuxuu la qaaday koobabka suurtagalka inta uusan ka tagin uu ku biiray naadiga Real Madrid kadib markii uu kula guulaystay xulka manshaafka koobkii dunida 2014. markaas waxa uu si toos ah ugu biiray kooxda Merengue. Toni Kroos waxa uu ka mid yahay xidigaha aan jeclayn in noloshooda gaarka dareenka warbaahinta ku soo jeesato, sidoo kale ma jecla lahasaawida haweenka faraha badan. waxa u dhaxday Jessica Verber. gabadhaasi waa khabiirad caan oo dhinaca dalxiiska ah, waxay ku guulaysatay hanashada qalbiga Kroos. waxay isguursadeen sanadkii 2015. waa hooyada 2 carruur ee u dhashay xidigan. Kroosna wuxuu ku tilmaamaa caawiyaha koowaad ee noloshiisa. ma bixiso wax waraysi ah, balse waxay joogto ula socotaa saygeeda. Toni Kroos waxaa lagu bartay xirashada kaba cad oo duqa, cagsigeeda saaxiibadiisa naadiga Malaki, kuwaasoo xirta kaba u gaara oo ay u sameeyaan shirkado caalami ah bilowga xil ciyaareed kasta. tani ayaa u noqonaysa sir ku duugan xirashada kabahaasi oo uu si joogto ah u xiran jiray waqtigii uu joogay Bayern marka xulkiisa uu matalayo kadibna Real Madrid.
tan iyo 2009 ayay ahayd sheekadaasi, isagoo kula guulaystay koobab waaweyn sida koobka Champions League iyo weliba koobab kale oo ku jiro koobka dunida. waxaana jira dhowr sheeko oo lagu cabiro kabahaasi, balse midda dhabta ayaa in iyadii ay u hadiyeysay kaba noocaasi ah ka hor inta aysan geeriyoon. waxa uu go'aansaday inuu sii joogteeyo xirashada kabahaasi si uu u weyneeyo iyadii. shirkadda Adidas ayaa u soo bandhigtay inay u samayso design gaara, balse waa uu diiday Tony. jirada Dumblon ee laga leeyahay dalka Spain ayaa ku warantay in laacibka sanadkii uu bixiyo 300,000 euro oo uu siiyo Fernando Torres sababa ku aadan guri uu ka degan yahay deegaanka La Vega ee caasimada Madrid. waxaana jirada intaasay ku dartay in laacibka laga rabo 25,000 euro bil kasta gurigaasi uu ka degan yahay aawadeed. waxa uu dhacaa deegaan ay ku badan yihiin laacibiinta Real Madrid. heshiiska gurigaasi waxaa labada laacib ku jira in laacibka reer Jarmal uu helo hool xafladaha lagu sameeyo, meelo lagu dabaasho, goobo jirdhiska, lagu daray garaash qaada 10 gaari. sida caadada, laacibiinta kubadda cagta waxay ka fogaadaan ka hadalka arrimaha siyaasadda si aysan u saameyn jamaahiirta ku kala fikirka duwan siyaasadda. laakiin xidiga xulka Jarmalka ee naadiga Real Madrid wuxuu ka baxay caadadaasi kadib markii uu daawaday dood ka baxaysay TV-ga taa oo dhex maraysay Angela Merkel iyo Martin Schulz, kaasi oo isagu Twitter-ka ku soo qoray ha noolaato Angie. waxa uu ku muujiyay taageerada uu hayo Angela Merkel, balse qoraalkaasi waxa uu dood badan ka dhaliyay baraha bulshada markii ay ku weerareen dad ku kacsanaa Angie. laacibkii hore ee reer Faransa iyo weliba kooxaha Bordeaux iyo Werder Bremen Johan Nico ayuu Kroos u arkaa kan ugu fiican uu garoomada kaga daydo, waxaana u sababa sida ay labada laacib isaga shaabahaan kubadda iyo weliba asaaliibta iyo boosaska ay ka ciyaaraan. xidiga maruu dooranayay shaxda kooxda ugu fiican FIFA 2014 iyo xidigii uu jeclaan lahaa inuu ka garab ciyaaro ayaa waxa uu ka yiri, xaqiiqda waxaa jira xidiga badan oo ay adag tahay inaad mid dooratid, laakiin waxaan jeclaan lahaa in garoon aan la galo Zinedine Zidane. mar kale ayaa wax laga weydiiyay laacibka uu arko inuu leeyahay qaab ciyaareedkiisa. waxa uu sheegay inuu arko laacibka Julian Weigl oo xidiga kooxda kubadda cagta Dortmund. marka laga tago ciyaarista kubadda cagta, wuxuu leeyahay Toni Kroos balwado kale uu jecel yahay inuu sameeyo waqtiyada uusan garoonka ku jirin. waxaa ka mid ah xanaanaynta eeyaha, sidoo kale waxa uu xiiseeyaa ciyaarista tenniska, waxaana uu arkaa inay tahay midda ugu fiican marka laga tago kubadda cagta, isagoo sidoo kale taageera halyeeyga tenniska Federer. ciyaarista bookarka waxay ka mid tahay kuwa ugu weyn ee uu jecel yahay Tony. wiilkan caalamiga ee reer Jarmal waxa uu leeyahay shakhsiyad aad u fiican taas oo ka caawinaysa abuurista saaxiibo badan oo ku wareegsan kubadda cagta. kuwa ugu dhow waxaa ka mid ah saaxiibkiisa Thomas Muller, kuwa oo muddo dhoorayso wada ciyaarayeen. sidoo kale waxa uu xiriir saaxiibtinimo oo xoogan u kala dhaxeeya Manuel Neuer, golaha xulka qaranka wadanka Jarmalka. Toni Kroos ayaa dhawaan ka jawaabay su'aalo baraha bulshada lagu weydiiyay, waxaana ka mid ahaa guuldaradii ugu xanuunka badnayd ee soo gaartay intii uu ku jiray kubadda cagta. wuxuu ku tilmaamay tii Bayer 2012 looga qaaday Champions League oo u lumisay kooxda kubadda cagta Chelsea. sidoo kale gulihii ugu waaweyn uu gaaray noloshiisa ayaa uu ku tilmaamay koobkii dunida 2014 ee uu xulkiisa kula guulaystay markii lagu qabtay Brazil. sidoo kale koobabkii Champions League gaar ahaan kii Juventus ay ka qaadeen ayuu u arkaa mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee noloshiisa uu la gaaray. daawadayaasha sharafta leh, sidee baad u aragtaan macluumaadkan aan idinla wadaagnay? su-aashaasi jawaabteeda iyo fikirkaaguba noogu reeb muuqaalka hoostiisa. markaad daawatay muuqaalkana naga hilmaamin inaad subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelin aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. sidoo kale sii sheer gare oo saaxiibadaada baraha bulshada kula sii wadaag sida Facebook, Instagram, WhatsApp, Google+ iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada.